السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome ayaa idin leeyahay asxaabta meel walba naga daawanaysaan waa walaalkiina Shaaciyo wan show ayaa naga daawanaysaan. Haddaba haddii aad doonayso inaad Mareykanka qof aad keento waxaad u baahnaanaysaa in aad samaysato group 5ka. Dabcan dhawaan bisha lixaad wixii ka dambeeya waxaa loo furi doonaa in qof kasta oo kaar qaxooti haysta lagu keeni karo dalkan Mareykanka. Hase yeeshee waxaad u baahan tahay inaad group 5 ka samaysato. Sidaas awgeed group 5ka 8 qodob ayaa laga maarmaan u ah. Midkood haddaad ka tagtana groupkaagii ma sii shaqayn karo, sidoo kalena applicationkiisa xataa lama soo aqbali doono. Sidaas awgeed waxaad u baahan tahay in applicationkaagii si degdeg ah approve lagu soo dhaho ama la soo aqbalo. Si saas ee u dhacdana waxaad u baahan tahay 8daasi qodob inaad raacdo. 8daasi qodob ayaan raacaynaa ila dhamayso kow ilaa iyo dhamaad, waayo midba midka kale waa uu ka sii fiican yahay, wax badanna waad ka baran doontaa insha Allah. Okay, marka hore waxaad u baahan tahay inaad aasto groupka. Haddaba groupka sidee loo aasaasaya weeyaan su-aasha ugu horeysa ee ina hortaala ayaa taasi noqonaysa. groupka waxaa loo aasaasaya waxay tahay sidaan horey u sheegnay, groupka waa inuu 5 ruux ka koobanaado. badna dadka waxay yiraahdaan groupka 5 ruux ka koobanaanaya ma kuwa Afrika jooga mise kuwa Mareykanka jooga. No, kuwa Mareykanka jooga ee dacwada furaya ayaa laga doonayaa inay ahaadaan group 5 ah ama 5 ruux inay ahaadaan ayaa la doonaya. sidoo kalena groupka waxa ka mid noqon kara saaxiibadaadii, walaalahaaga, deriskaaga, dadka shaqo wadaaga aad tihiin iyo qof kasta da ahaan gaaray 18 jir amaba ka weyn. sidoo kale waxa groupka ka mid noqon kara qof walba oo citizen ah laakiin 18 sano gaaray ama ka weyn. xitaa haddii citizen uusan ahayn ee green cardka uu haysto waa uu ka qayb qaadan karaa oo groupka waa uu ka mid noqon karaa. haddaba number 1 waan ka soo gudbaynaa oo waxaan u gudbaynaa number 2 oo ah in aan samayno ama aad samaysaan background check. qof walba oo groupka ka mid ah waxaa laga doonayaa background check. groupkii ayaa la aasaasay, 5 ruux ayaa isku timid, groupkii 5 ruux waa la helay, laakiin waxaa muhiim ah in la helo background check. haddii background check midkiina uusan samaynin groupka khalaas weeyaan waa u dhamaatay. sidaas awgeed waxaad u baahan tihiin qof walba oo groupka ka mid ah inuu background uu sameeyo. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid maxaa la isweydiin doonaa ama backgroundka maxaa la baari doonaa. ma ahan oo keliya inay baari doonaan inaad hadda ka hor darooga aad soo cuntay ama aad soo cabtay ama aad isdurtayba, laakiin waxa ay baari doonaan dhammaan wixii dembi ah aad Mareykanka ka gashay. haddii ay ahaan lahayd xadida, dhaca, kufsiga, wixii markaasi dembi ka ah Mareykanka aad gashay ayaa la baaraya. haddii hadda ka hor xarag lagu geystay, maxkamad aad tagtay, dhammaan ayaa la baaraya. sidaas awgeed haddii adiga aad ka mid tahay ama aad tahay qof hadda ka hor dembi galay, background check ha iska aadin, waayo groupka khasaaraha u keenin banaanka ka mar si groupka applicationkiisa approve loo dhaho. qaybta labaad ayaan u gudbaynaa complete training. waxaa laga doonayaa qof walba oo ka mid ah groupkaasi in uu complete ku sameeyo trainingkiisa ama training uu qaato. waajib ma ahan, waxaa waajib ah laakiin in hal qof oo ka mid ah groupkaasi uu sameeyo. laakiin sida dowladda ay ku talinayso ayaa ah in dhammaan groupka dadka ka mid ah ama 5 ruuxba ay wada qaataan trainingka, waayo waxa ay noqonayaan dad ka warhaya shaqada. haddii mid uu xanuunsado, tusaale ahaan aan dhahno trainingka waxaa qaatay hal qof oo keliya, qofkii hadduu xanuunsado waxaa laga yaabaa inta kale oo dhan aysan war u haynin wixii la qaban lahaa. sidaas awgeed waxaa wanaagsan ugu yaraan 2-3 ruux ama 5tiinaba inaad qaadataan, inkastoo aysan waajib ahayn. qaybta afraad ayaan u gudbaynaaye waxaad u baahan tihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijka lagu magac daray attend application support. kaas ayaa la idinka doonayaa inaad ka qayb qaadataan, waayo qaarkood dadka ma yaqaanaan sida applicationada loo sameeyo. waayo applicationka waa uu kugu cusub yahay, ma ahan applicationo aad soo samayn jirtay oo aad xirfadeedii leedahay, waa application kugu cusub. sidaas awgeed waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad hesho caawinaad ku aadan sida applicationka loo samayn lahaa. sidaas awgeed welcome core waxa ay ku hayaan team loo asteeyay in adiga ay ka caawiyaan
sidii applicationka aad u samayn lahayd. Number 5 aan u gudbaynaa. Waxaa laga doonayaa in aad samaysataan ama groupkiina uu diyaariyo qorshaha soo dhaweynta. Qorshaha soo dhaweynta waa udub dhaxaadka groupka iyo dadka aad keenaysid. Waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee welcome call-ka ay fiiriyaan inaad samaysay. Haddii aadan samaynin ama groupkiina aysan lahayn qorshaha soo dhaweynta, applicationkiina lama aqbalayo ama qabyo ayuu noqon doonaa. Haddaba welcome call waxa ay idinka doonayaan in aad samaysaan qorshaha. Qorshaha ma af ahaan ayaa loo sameynaya mise wax qoran? Wax qoran ayaa la idinka doonayaa, waayo background check-ga applicationkan hadda aan ka hadlayna welcome blanka dhammaantoodii waxaa la idinkaga doonayaa in applicationka aad ku dirtaan warqadaha aad raacsiisaan ayaa la idinka doonayaa. Sidaas awgeed waxaa la doonayaa welcome plan inaad samaysataan. Waana qorshe qoran, sida loo diyaariyana haddaad u baahan tahay waad helaysaa. Website-ka ayuu ku jiraa. Waxyaabaha dadka laga rabo oo dhan ayaga idin siinaya. Waxa la yiraahdaa template. So template-ka halkaas ayaad ka heli kartaa insha Allah. Qaybta 6aad ayaan u gudbaynaa, sign the commitment form. Waxaad u baahan tahay in warqadaha ama formka commitmentiga inaad saxiixdaan. Qof kasta oo ka mid ah groupka waxaa laga doonayaa in warqadda commitmentiga uu sameeyo ama uu saxiixo ayaa laga doonayaa. In la iska akhriyo ayaana aad muhiim u ah, waayo hadhow sidaa uma malaynaynin, sidaa ayaan u malaynay inay dhacdo lama doonayo. Hadda intaadan saxiixin formka iska akhri, iska hubi. Haddii xitaa aadan luuqadda garanaynin, la kaasho qof luuqadda yaqaana oo ku akhriya, waayo formka marka horeba waa la printer garayn karaaye. Printer garayso, qof yaqaana u tag, akhriso, ha lagu akhriyo, kadib markaa fahantid saxiix. Laakiin ogow 5 ruux waa laga doonayaa warqadaasi ama formkaasi inay wada saxiixaan. Qaybta 7aad ayaan u gudbaynaa. Intaanan qaybta 7aad aan ka hadlin, waxaan kaa rajaynayaa in muuqaalkan asxaabta aad la wadaagto. Haddii Facebook-gaygii aad ku cusub tahayna follow soo dheh, YouTube-kaygina soo booqo, isagana subscribe soo dheh. labaduba waxaa ku qoran Shaaciye One Show. Like inoo soo saar, commentigana wixii su'aal, talo iyo tusaale ah halkaa ku soo qor insha Allah. Okay, number 7. Number 7 waxaa la iska doonayaa in lacag aruurin aad samaysaan. Lacagta la aruurinayo waa in ay ahaataa lacag la soo aruuriyay 60%. Lacag la soo aruuriyay inay ahaato weeyaan. Waxaana ay mar walba ay doonayaan in lacagta fundraising la sameeyo, website la sameeyo ama wax online ah la sameeyo. Sidaasna fundraising lagu sameeyo. Ma doonayaan lacagtii la iga doonayay waatana jaabkaygan kala soo baxay, bangigaygan kala soo baxay, waa haya lagama doonayo. Waxaa la doonayaa qayb ka mid ah lacagtaasi waa in fundraising ahaan ay ku imaato ayaa la iska doonayaa. Halka aad iskaga hubi. Lacagta la doonayo waa $2,375. Markii hore waxay ahayd $2,275 ayay ahayd. 100 dheeri ayaa lagu daray. Sidaas oo la soco. Waxaan u gudbaynaa qaybtii u dambeysay oo ah diristii ama apply guarantee groupka. Dhammaan systemkaas markaad soo martay waxaad soo gaaraysaa in applicationkii aad dirto. Haddaba si applicationka aad u dirto waxaad u baahan tahay inaad haysato ama aad haysataan magaca groupka. Groupka waa inuu magaca lahaada. Sidoo kale qof walba oo groupkaasi ka mid ah ayaa xogtiisa halkaasi la gelin doonaa, waayo qaybyo ayay leeyihiin. Qof walba qaybtiisa ayaa la gelin doonaa. Waxaa la iska doonayaa first name, magaca koowaad, iyo magaca awowga ama last name ka loo yaqaano. Sidoo kale waxaa la iska doonayaa adresskaagii, magaaladaadii, iyo weliba zip code-ka aad markaasi ku nooshahay. Sidoo kale waxaa laga doonayaa lambarka telefonka, emailkaagii, lab iyo dhidig waxaa tahay, iyo da'daadii. Qof walba oo ka mid ah groupkana waa inuu xogtaasi halkaa geliyo ama lagu buuxiyo ayaa waajiba. Haddii mid laga tago waxa aad noqonaysaan 4 ruux. Groupkiina sidaas ayuu qabyo ku noqonayaa. Approve-na ma helaysaan oo waa la soo celin doonaa applicationkiina. Wixii talo iyo tusaale ah ama toosina qaybta commentiga inoogu soo reeb. Sidoo kalena su'aal haddaad noo qabto qaybta commentiga ku soo qor. Like, share, follow, subscribe. Dhankiinaan idin daayay. Xogtaas waan idinla soo wadaagay. Intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.